Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh all people wayn salaame waa Cabdiwahaab Daraxaashi oo markaa aad ugu baratay inuu soo jeedo barnaamijyada ku saabsan Samsung-ka. Maanta barnaamijkeena daawadayaal wuxuu ku saabsan yahay telefoonka Samsung-ka ee S2-ga ah. telefoonka lamaan waa S2-ga cashar ku saabsan. Maanta barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay si maqalku u saaran codka oo jar lahayd uu qofka codka maqalka uu dhegeysan ama muuqaalka codkiisa looga jaro. Haatan waxaan tegaynaa galeriga muuqaal ayaan shidaynaa cod ayaa saaran muuqaalka. Codka waad dhegeysan kartaa. Haatan aan imaano muusiga quraan aan daareynaa. waad maqli kartaa quraanka iyo wixii muuqaalka marka codka saaran waa dhegeysan kartaa. Si looga jaro marka codkaas iyo saaran muuqaalada ama codka caadiga ah. Waxaan tegaynaa meesha setting marka settings ayaan ku dhufanaynaa. Waxaan tegaynaa my device. Kabacdi waxaan tegaynaa meel ku qoran tahay calaamada buluuga ee saartay accessibility. Accessibility magaatan hoos ayaan u soo baxaynaa. Waxaan imaanaynaa meel ku qoran tahay turn off all sounds calaamada buluuga ee saaran tahay. Waxaan saaraynaa tick calaamad saxda ah. Haatan ma maqli karno cod saaran muuqaalka. Aan tagno muuqaalka hadda. Waakana hadda cod ma lahan muuqaalka kaliya ayaa meesha taagan. Aan tagno muusiga. Ma dhegeysan kartid quraanka waa daaran yahay laakiin ma dhegeysan kartid. Sababtuna waa baalkii oo markaa turn off ayadoo hadda maqalka saaran ayaan soo fureynaa. oo qaadmo my device tag. Kabacdi accessibility tag. kabacdi waxaan tagaynaa meel ku qoran tahay turn off. hadda tigunu saaran tig hadaan ka qaad quraanka ayaa shid maayo. waa tartiinaya oo maleynayaa inuu hadda tig ka qaadmay. markaan tig ka qaadmay inuu codkii soo tufo markaa. waa si fudud marka codka oo jar maqaladaada ama muuqaaladaada. waa Cabdiwahaab Daraxaashi daawadayaal oo markaa jecel inuu mar walba dadka u soo deeyo casharada markaa ku saabsan Android-ka. markaa waxaan idin leeyahay cashir kale oo xiiso badan. Wassalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala